Donald Trump ayaa amar ku siiyay Wasarada Cadalada ama Department of Justice-ka Mareykanka in wax kasta oo tixraac ah oo loo isticmaali karo Donald Trump haddii uu xilka madaxtinimo uu ka dago ama uu xilka ka dhamaado in aysan macquul gal noqon doonin in lagu soo xiro ama lagu soo qabto oo roadblock waxa loo yaqaan lagu sameeyo ayuu amar ku siiyay Wasarada Cadalada ama Justice Department ee Mareykanka. Donald Trump ayaa waxa ognahay sidoo kale in Attorney General-ka macnaha ay sheegay sidoo kale ku xigeenka ama Attorney General Deputy-ga ninka lagu magacaabo Todd Blanche uu horay u ahaan jiray personal attorney-giisa ama asaga qareenkiisa gaarka ah dambiyada waaweyn ka difaaco sidoo kale maxkamadihii New York iyo waliba sidoo kale 34 dambi asaga difaacay asaga iyo familkiisa ee qareenka gaarka ah u ahaa sidoo kalena hadda ahaa administration-kiisa labaad ama maamulkiisa labaad ee Donald Trump hadda 4 sano ee hadda uu xilka hayo in uu u magacaabay ku xigeen ama sidoo kale ku xigeenka xirlaaliyaha guud ee Mareykanka. Hadda waxa ognahay sidoo kale saacadii la soo dhaafay in uu dalacsiin heer sare ah u sameeyay Donald Trump Todd Blanche oo uu ka dhigay xirlaaliyaha guud si buuxda ah ama permanent uu uga dhigay hadda oo xilkaasi si toos ah uu la wareegay Todd Blanche taariikhdiisa ninkan hadii aan idin sheego waxa weeye personal attorney ama qareenka gaarka ah ama sidoo kale macnaha isheegay ninka maxkamadaha Donald Trump ka difaaci jiray ninka asaga iyo familkiisa wax kasta oo khaladaad ah ka difaaci jiray sidoo kalena daba socday markasta doorashooyinkii sidoo kale waxyaabaha irregularity-ga ah waxyaabaha business-ka ama canshuuraha in uu sidoo kale canshuura Donald Trump 70 sidoo kale Donald Trump 70 sano ee la soo dhaafay wax canshuur ah uu san bixin asaga iyo familkiisa waxyaabahaas oo dhan cover up si loogu sameyn lahaa in uu magacaabay ninkan si official u dalacsiin ugu sameeyay maanta wax yar ka hor hadda aan idin la hadlahayo Donald Trump sababtuna ay tahay la soo ogaaday in uu rabo in uu block gareeyo wax kasta oo sidoo kale tixraac ah wax kasta oo Donald Trump dacwo ah oo lagu soo eegi karo markii uu madaxtinimada u baneeyo sidoo kale in uu sidoo kale veto gareeyo waxyaabahan oo dhan waxa muuqata Donald Trump in uu wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ee heer federaal ee dadka ka dhaxaysay uu sidoo kale ku milmay in uu san rabin wax dambi ah in loo qabsado waxay tahay su'aasha la isweydiinayo marka su'aasha ugu weyn oo la isweydiinayo ayaa waxay tahay dadka Amerikaanka ee raba inay ogaadaan maxay tahay sababta Donald Trump uu ugu amray ninkan ama Department of Justice ninka madaxda u ay waliba sidoo kale wasaaradda cadaaladda Mareykanka oo dhan uu amarka ugu siiyay in ay roadblock ku sameeyaan ama isbaaro u dhigaan wax kasta oo tixraac ah oo Donald Trump lagu tixraaci lahaa sidoo kale waxa la soo sheegayaa in sababtu ay tahay cabsi uu ka cabsanayo inuu xabsi galo ama prison sida ognahay sidoo kale dadka asaga ka agdhow oo dhan waxay macnaha ku dhawaaqeen inuu xabsi gali doono waxa ognahay sidoo kale ninka lagu magacaabo Mike Johnson oo ah sidoo kale speaker-ka ama gudoomiyaha baarlamaanka ama Congress-ka Mareykanka oo Republican-ka sidoo kale saaxiibka dhow Donald Trump oo ah ayaa ognahay inuu sidoo kale sheegay haddii midterm-ka looga guuleysto qolinka Republican-ka in Donald Trump impeachment lagu sameyn doono in dabagal lagu sameyn doono asaga iyo familkiisa iyo businesskiisa wax kasta oo xataa arrimaha dibadda iyo waliba arrimaha gudaha ku aadan business kasta oo Donald Trump macnaha ay sheegay iyo waliba sidoo kale wiilashiisa iyo gabdhihiisa ay musuqmaasuqeen canshuuraha uu san bixinin asaga iyo IRS settlement-iga ay sameeyeen asaga iyo IRS ama qolinkan canshuuraha ay sameeyeen oo maamulkiisa isla maamulkiisa uu asaga settle gareeyay ama uu xaliyay qaabka illegal-ka ah si aan looga daba iman sidoo kale slash funds-ka lacagahan uu qaybinayo uu rabo inuu dadkan criminals-ka u qaybiyo waxyaabahaasi oo dhan maadaama ay file gareysan yihiin ama file buuxo qolinkan dimuqraadiyiinta ay ka haystaan oo Donald Trump ay rabaan inay ku impeach gareeyaan ayaa ay tahay sababta uu Todd Blanche u dalacsiiyay oo markii horeba ahaa asaga qareen uu gaar ah oo asaga uu leeyahay haddana uu u dalacsiiyay Department of Justice that means he owns the Department of Justice Donald Trump asaga ayaa hadda mulkiyay ayaan dhihi karnaa oo sababtu tahay ninkii asaga qareenka gaarka u ahaa oo sidoo kale uu u dalacsiiyay in uu noqdo xeerlaaliyaha guud ee Department of Justice ama wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa sidoo kale u muuqato cadeyn buuxdo marka Donald Trump si uu u qariyo business-yadan waaweyn ee bariga dhexe uu ka aasay asaga iyo waliba familkiisa hadda waliba sidoo kale inay rabaan inay resortiyo iyo waliba sidoo kale xarumo ama goobo lagu raaxaysto ay ku sameeyaan bariga dhexe dagaalkan waxyaabo badan ay ku hoos duugan yihiin waxyaabahaasi oo dhan sirahaas in la soo faafaaqi rabo cadeymihii oo dhan Donald Trump uu hadda codsanayo in la baabi'iyo sabab la xiriiro in uu sarrabin in uu xabsi galo
laakiin la wada og yahay laakiin su'aasha la isweydiinayo waxay tahay sidee ay ugu suurtagelaysaa baarlamaanka Mareykanka maxay ka dhihi doonaan Congress-ka Mareykanka iyo waliba sidoo kale Senate-ka maxay ka dhihi doonaan xildhibaanada intooda badan kuwa Republican-ka ah sidoo kale may ku raacsan yihiin waa maya hadda Donald Trump xataa xisbigiisa ayaa ka soo horjeedsaday oo labada dhinacba Senate-ka iyo waliba sidoo kale baarlamaanka ama Congress-ka Mareykanka ajendayaal fara badan oo dagaalka Iran uu kamid yahay sidoo kale Safe Act ay kamid tahay ayaa macnaha Donald Trump ay ku khilaafeen ama ay uga soo horjeedsan sabab la xiriira inay ku fahmeen hawshan in uu rabo inuu u rogo familkiisa dawladii uu asaga is hoos keeno wax kasta oo familkiisa ku saabsan in uu sidoo kale isheega sidoo kale uu qariyo oo corruption uu ku dhaxwado sidoo kale xaqiiqsadan ay ogaadeen waxay sidoo kale ogaadeen inay loose gareyn doonaan labada aqal waxay sidoo kale ogaadeen ama ay ku baraarugeen hadda inkastoo markii hore indhalaan ay haysay inuu Donald Trump iyo waliba sidoo kale cid kasta oo asaga uu wato aysan madaxtinimada Mareykanka ku soo noqon doonin ama aysan Mareykanka maamuli doonin 8 sano ee soo socoto ee qolooyinka dimuqraadiyiinta isku xishan doonaan sabab la xiriiro in dambiyo tirada ka baxsan lagu soo eedeyn doono dhamaantood xitaa qaar badan oo cabinet-ka ama wasiirada golihiisa wasiirada kamid ah ugu dhow waliba oo sidoo kale faylalka Epstein ay ku jiraan sidoo kale soo xaqiijinaya ama soo baxayaan ama cadeymahoodii sidoo kale dimuqraadiyiinta ay hayaan ama ay helaan ay gacanta ku dhigeen waxaas oo dhan wuxuu u sameeyay hadda wasaaradda cadaaladana uu u rabo inuu u howlgeliyo si ay xabsi ooga ilaaliyaanna ay tahay sababtaas bal waxa muuqaalkii la daawo. We have some big news right now. Donald Trump is terrified of criminal prosecution, so much so that his personal criminal defense attorney, now Attorney General, has announced today that he is instituting, quote, roadblocks to prevent future prosecution of the President of the United States, his children, and his companies. Todd Blanche today made the announcement in an interview with Katie Pavlich, essentially saying that they're going to be instituting so-called roadblocks to prevent Trump and his family and his associates from facing criminal prosecution, including individuals who worked for Trump during the second term. Now, they wouldn't need these roadblocks if they didn't do anything wrong or if they didn't think they did anything wrong. But as we know, the Trump administration over the past 18 months has engaged in actions that many experts say not only violate criminal law, but violate human rights for people across the country. Spread the word because people حتى كلية ما فمل كيسة عد كستو أو شدو كلا بيزنسيس كلا سو شقيسي عد كستو أساق شقالة وأهيد أما أو هاير جري كمبنيدي سكلا دوان جودها وضن كيولي وشدو كلا دبدا بيزنسيدا شدو كلا قارنا لسودي دي قارنا كهول كلا بارق دحي oo qaar Australia ay diiday in laga dhiso dabaq weynaa magaalo kamid ah magaalooyinka waaweyn Australia xeebaha ku yaalo goobaha raaxada uu rabay inuu ka dhiso hotelkan Donald Trump aba bicnaha Trump Towers uu rabay inuu ka dhiso hadda sidoo kale Albania ay diidan yihiin in gabadha Donald Trump iyo sidoo kale ninka qabo ee sidoo kale lagu magacaabo Jared Kushner oo sidoo kale uu soo dogo Donald Trump uu yahay in ay ka dhisaan resortkaas qaaliga ah uu sidoo kale rabo in uu ku qariyo waxyaabahaasi oo dhan inaana sidoo kale businessyadan guryahan laga dhisanayo dibadda Donald Trump familkiisa waxyaabaha ay sameynayaan oo dhan in uu macnaha rabo inuu u baabi'iyo ama uu xabaalo wax kasta oo sidoo kale baaritaan oo looga hor imaan karo ama sidoo kale uu baadhan isku sameeyo asaga laftirkiisa uu isxalliyo asaga gudihiisa iyo familkiisa sidoo kale cid kasta oo ka shaqeyso businesskiisa cid kasta oo aqalka cad ka shaqeyso ama White House-ka press conference-da haday noqoto qofka maamulo Caroline Levitt sidoo kale macnaha ay sheegay gudaha aqalka cad waxa ka shaqeeyo in uu sidoo kale u bedelay family enterprise businesskan ama Mareykanka uu corporate ka dhiga asagana uusan maamulin balse lagu adeeganayo uu yahay nin ganacsado ah oo beesh iska fadhiyo balse qolooyinkii ganacsatada bilyaneerada ahaa ee isaga sababta u ahaa inuu xilka ku soo noqdo markiisii labaad in ay macnaha waxay rabaan ay ka sameeysanayaan Mareykanka asagana uu meesha iska fadhiyo si macnaha businessdiisa uu u bulaaliyo oo macnaha businessyo arimaha macnaha ay sheegay dibadda uu iyo waliba gudaha Mareykanka uu uga dhisto in sidoo kale uu macnaha ku dadaalo inta uu xilka hayo in aan familkiisa la soo dabadaysan ama wax baaritaan aan lagu sameeynin marka waxa muuqato in uu macnaha xaafad asaga uu leeyahay oo Mareykanka u arko balse arimahan ayaa iskaga daba imaan doona aqliga Donald Trump sida uu shaqeynayana aqliga Mareykanka iyo waliba sidoo kale uma shaqeeyo sida systemka uu shaqeeyana sidan ma aha waxyaabahan oo dhanna sidoo kale waa ay qoran yihiin oo waa documented 24 hoursna waa la soo qarxinaya oo sidan ayaa ka jirta Mareykanka marka meel uu ku baxsanayo mala wax kasto ama talaabo kasto uu qaadana dabagal ayaa lagu sameeynayaa oo sidan ayaa loo soo qarxinaya oo meel uu ku baxsado mala hadii muuqaal ku soo gaaro like noo saaro waan maasantahay